siyaasi cali gure oo ka mid ahaa golaha dhexe xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo telefishinka sahan la hadlayay ayaa sheegay inuu xubinnimadii iyo weliba golihii dhexe ka tirsanaa xisbigaasi kulmiye guud ahaanba uu iska casilay isla markaana uu ku biiray xisbiga mucaaridka ah ee UCID waxaanu sheegay inuu ka noqon doono xisbigaasi murashax u tartamo golaha wakiilada Soomaaliland kana sharaxan gobolkaasi saaxil maanta way bishu tahay 25 December 2020 waxaan halkan ka cadeynayaa inaan iskaga baxay xisbigii kulmiye aan ka tirsanaa golihiisa dhexe in muddo aan soo wada shaqeynay waxaan halkan bulshada reer Soomaaliland ugu cadeynaa xisbiga iskaga baxay iska casilay xubinimadiisii tiisi golaha dhexe walba iska casilay xisbigaas oo u eegaaday xisbiga malcaamad deeba ku ruuy caruurta alifbeetada loogu dhigo ayuu xisbigaas u eegaaday waa xisbi doonaya inuu murashax soo xulanayo murashaxiin hanti goosi ah xildhibaano doonaya inay dana khaas ah fuliyaan xisbigaas oo soo xulanaya waan iskaga baxay xisbiyada kala tagay xisbiga UCID baan tagayaa insha Allah taala saan rajaynayo halkaas doonaya iska sharaxo waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland in badan buu Faysal cali waraabe dalka difaacayay maanta waxaynu doonaynaa in xubnaha baarlamaanka ee ka sharaxan xisbiga UCID la taageero si uu Faysal ugu guuleysto doorashada madaxtooyada telefishinka sahan magaalada Berbera